deegaanka qalimow oo 30 kiiloomitir u jira magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay dirir ku dhex martay laba beelood oo walaal ah balse arrintaasi ayaa waxa si degdeg ugu baxay ciidan uu hogaaminayo taliye ku-xigeenka guutada saddexaad qaybta 17aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle Ismaaciil Kuulow Xasan Ismaaciil Tuure waxayna si degdeg ah xabad joojin u dhex dhigeen labadii beelood ee ay dirirtu dhex martay kadibna waxay is hor keeneen nabadoonnada iyo madax dhaqameedka labada beelood ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay nabadoon Maxamed Xasan iyo waliba nabadoon Cabdulle Xuush oo ah nabadoonnada mid ka mid ah beelaha dagaalamay waxayna sheegeen in ay qaateen dhinacooda xabad joojinta waxaa halkaan ka cadeeynaa xabad joojintii macnaha bashuruud la'aanta oo noo soo jeediyay taliyaha noo soo jeediyay waa aqbalnay waana qaadanay bilaa shuruud la'aan ayaan ku aqbalnay waana qaadan dowladda mahadiisa ah waana hergash waxaan jeclahay taliyaha qeyr laasiyo labada dhinac xabad joojinta ninkii dhinaciisa ka jabto waa inaad tilaabo sharci ah laga qaado dadkan dhowr sano isla deganaayeen dalka isla daaqayeen caanay isla cabaayeen waa dirisaa la ahay wax walbana ilaahay qadar ilaahay ku dhacaan waana dhammaadaan waxaas wax noo bilaaw oo ahayd wax dad isku taagnaa jira ma ahayn haddana waxaa naga soo gaaray oo waxay sii ahaataba dadka amniga sugi lahay oo gobollada macnaha ciidamada qalabka sidiyaa naga soo gaaray intoo dad ku dhiminin laakiin waa isku diyaarsanaayeen labada beel waana la kala qaaday haddana waxaa caddaynaynaa xaggayna inay xabaddii joojintii waxba ku jabin haddaan nahay beesha moobleen waxaa jecelnahay nabadgelyo nabadoonnada kale ah Maxamed Axmed Faarax iyo Maxamed Cali Beeri ayaa iyaguna dhinacooda sheegay inay aqbaleen xabad joojinta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان قيارته iyo dawladda ciidamada qalabkooda waa salaam bacdigeed dawladda yiraahdo ujeedada mataqaan halkaan isku yimaado waa arrimihii xalay ka dhacay maxaa tiraahdaa deegaanka qalimow marka Allah barakeeyo intii mataqaan juhdi ku bixisay marka waxaan halkaan ka cadeynaynaa maadaama aan ahay nabadoonka Ciise Mudulood xabad joojintii ciidamada qaranka ee naam afmareen waa qaadan haddii Ilaahay yiraahdo in ay dhinacayna ka jabin qof bilaadan dhiigiisa aan gelin muslimka aan badbaadino dadka waa wada walaal kuwa hadda xabada ku ridina walaalahay ahayn anagana walaalaanahay waxaan hadda kala duwanahay ma jiraan waxaan nahay laba isla dhalatay laakiin shaydaan baan dhex galay caawa kadib ama maanta kadib waxaan cadeynaynaa inaan dhiiga walaalkeena u bareereen annagana waxaan u mahad celinaynaa dadkii meesha yimid oo maslaxadan ka taliyay khayr Allah siiyo waxa kale oo weheliyay xabad joojinta lagu dhawaaqay oo xaggayna ana korar Ciise ah waxaan ballan qaadaynaa tilaabo oo daba ina dhicin oo qori ah ammaanka ina sugno qofkii xadgudub wadana laga qabto iska soo gaarno dhibaatooyinka dhacaya cadawiyada badan iska jiro hadoo alla yiraah waxaan suubinaynaa inaan qof qoriq sita oo tuulada qalimow shacab ah lagu arkin ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay taliye ku-xigeenka guutada saddexaad qaybta 17aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle Ismaaciil Kuulow Xasan Ismaaciil Tuure isagoona kula dardaarmay nabadoonnada inay adkeeyaan xabad joojinta bismillaah alxamdulillaah ilaaha mahadleh oo noo suurta geliyay xabad joojinta degdegka ayaan ku baaqnay naysin nabada wanaagsan u hirgash ilaahan ku mahadiyayna midda kale waxaan mahad ballaaran u jeediyaa nabadoonnada labada beelood ee si xushmad leh walaaltinimo leh xabad joojinta aan ugu baaqnay si degdeg ah ku dhaqan geliya aad ay ugu mahadsan yihiin mahadu ka gaarto waxaan idin kula dardaarmaa nabadoonnadayniyow waxaa lagu jiraa bil Ramadaan oo caaba dhasho haysa waxaan idinka codsadaa xabad joojinta sidii hadda aan halkaan ugu kala seexan inuu ugu hirgasho oo aysan dib dambo munaafiq dina aan loo helin haddii ay dhacdo munaafiq wax dila ay dhacdana in munaafiq wax dilo in si degdeg ah aad u soo farmuqdin anugana waxaan naga rabaa inaan tilaabo sharci ka waafajino insha Allah aad u mahadsantiin waana idin mahadcelinayaa boqolkiiba 100 dhinaca kale ururka 23aad guutada saddexaad
qaybta 27aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmihii u dambeeyay waday howlgallo lagu bacsanayo argixisada Al-Shabaab ayaa soo qabtay gaari iyo hub u watay horjooge Jacfar Maxamed Axmed iyo maleeshiyaad ilaalo u ahaa ciidanka ayaa dilay labadii maleeshiyaadka ahaa halka ay dhaawaceen horjooge Jacfar Maxamed Axmed oo ahaa horjoogihii degmada Balcad ugu magacaawna argagixisada isla markaana dhibaato ba'an ku hayay shacabka halkaasi ku dhaqan taliye ku-xigeenka guutada saddexaad qaybta 27aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle Ismaaciil Kuulow Xasan Ismaaciil Tuure ayaa soo kormeeray fadhiyada kala duwan ee guutada saddexaad